hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xilsi xaaji cali xasan ayaa waraysigii ugu horeeyay u siiyey warbaahintan iyo intii ka dambeysay natiijadii doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu ka hadlay waxa ugu qorshaysan xisbiga wadani xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub ee Soomaaliland inay ka qayb galeen ayaa waxa wili والله أنا ما ننقش السنة منك يقولون أنا ما أسوينا مركز هذا واحد قرشة ونوجي على ما تشرو لكن مستقبل كحنود إنه وقت جيد مركز. ورئيسكان أوردر وسية تلفزيون هون كيبل تي في وعقلوا كل شيء الحزب وطني بارتان وصاري صابي كان إني ويان كرسي كما ضحتني ماذا الصومالي الآن وحن يري. حمسو ما نقول ده السن لكن سوى حنو قارو إني وحنا دونين وها إنه ترى ذلك قبلنا تاسنا wax loo tartamo oo hadii jeer ale marka la tartamayo inaad waxa doonaysa gaadhay inaad gaari weydo labadaba waa suure sabab dabcan way jireen saad weydiinayso sabab way jireen waana badan yihiin anagana waa laga yaabaa in xaqiiqa ka timaado sababo aanu tirsanayno runtii in ay gacmo kala soo galeen iyo inaanay doorashadu madmadow ku gadaanaa marar badan xusnay intuu way jireen aan wax ka tabayno laakiin sidoo waxa soo dhan wax isku fuuqsaday waxaanu aqbalay wixii ka soo baxay marka waxa way mar hadii wax soo baxaan waanu aqbalay wixii ka soo baxay waxba iminka wixii hore dib uga noqon maayo waxa runtii la wada oo socda daraasad ku saabsan wax dhacdadii dhacday iyo waxa weeye in daraasad lagu sameeyo si dhameystiran oo xisbigu uu qorsheynayo in si dhameystiran maxaa keenay inaynu gaari weyno oo awoodii aynu lahayn iyo inta filashadeena maxaa hoos uga dhigay iyo sidoo kale maxaa ku soo kordhay doorashada oo warwar runtii uu jiro waa markii uu horeysay warwar noocaas yimaado inay gacmo kale ina soo galeen iminka ka hor dhici maayo oran maayo hebel iyo hebel bay ahayd laakiin baaritaan iyo waxa weeye tiimka loo saaray waxa ay soo saaraan baan ka sugaynaa إن شاء الله تعالى وقتها. وجميع حزب وطني حزب حاج علي حسن وكهذا صدق كله ورك الشيء جاية إن زمان دافع كتاجين هاي دين الشيء جايين حكومة مدحين السلايو أي كورة كنيسو مدحنا عصوبة سومال لذ موسى بيح عبدي وحنورين. والله أنا وحبك على مسعود ديمها مركز يوجد بيسين الله وصلنا كوربان دولت كتو ديم الدلق وما لهيني هو وشقيني سيو بدنا ولي waxa soo bixi jiray surplus iyo in budgetka ziyaada ka soo baxdo marka maan maqal wax deadline official ah sheegay in ama dib u dhac yimi oo wax weeye dhaqaale hoos u dhacay in kasto dhaqaalaha guud dalka aan ka warhayn hoos u dhac jiro laakiin in miisaaniyadeena ay isdinto deficit la galay maan maqal deynta kale ee aad sheegtayna maan maqal marka wax aanan ogeyn ka jawaabina waxaa sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka waddan uu ka hadlay shirar ay qabanqaabinayaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqameedka Soomaaliland waxaanu yiri waxa weeye waxay xaq u leeyihiin taageerayaashooda ra'yigooda inay cabiraan iyo inay dareenkooda soo gudbiyaanba waa dal dimuqraadiya xor bay u yihiin laakiin se tala xisbigu iminka uu ku tashaday inuu shirarka ku qabto oo maamul iyo hoggaan buu leeyahay oo iminka naga soo go'day ma jirto haddii se timaado ama meel fog ha laga soo sheego ama meel dhow ha laga soo sheego ama meel dibadda ha laga keenay haddii talada timaado aynu tala isugu nimaadno waa markeeda iyo maalinteeda laakiin se hadda deegaanadu inay cawdaan xaq bay u leeyihiin oo ka cawdaan maamulka jira inay tabashadooda iyo waxay tabayaan iyo waxay doonayaan ba sheegtaan xaq bay u leeyihiin inay haday xisbi ahaan anaga yiraahdaan aan tashano aan tala isweydiino xaq bay laakiin se wali ma dhicin imanka tala xisbigu uu ku go'aansaday inuu ama burco tago ama cirgaabo tago oo yaani qorshe noocaas hadda wali ma dhicin waxaan rajaynayaa insha Allah taala tala mugla markii la isugu imanaya hadda gudoomiye dalka dibadda kaga maqan yahay oo yaani wuxuu joogaa Nairobi safar oo gaaban ku tagay maalinteeda iyo marka tala loo baahdo iyo waxa laga tashanayo la isweydiinayo laakiin se imika waxaan arkayaa deegaano kamid ah haday cabasho dareemayaan haday tala doonayaan dadkoodu wuxuu soo jeedinaya wax saameyn oo guud